wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga Mas'uud Cavusoglu ayaa hadal adag oo hanjabaad u diray dowladda Israa'iil. Dagaal socday 11 cisho toddobaadada aynu soo dhaafnay waxaa ku nafwaayay 240 Falastiiniyiin ah halka Israa'iiliyiinta ay ka dhinteen 28 qof. Waxaa ku guryo beelay kumanaan Falastiiniyiin ah oo ka guuray guryahoodii. Wasiirku hadlayna wuxuu dhignaa hadalkiisii sidan: intii lagu dhex jiray weegagii aynu soo dhaafnay waxa aan dhammaanba markhaati ka ahay inaan aragnay sawirro muruga nagu keenay oo ah dhulkii Falastiiniinta iyo dadkii Falastiiniinta. Maxaa dhacay? waa natiijo ay leedahay Israa'iil kacdoonka ka socda Masjidul Aqsa iyo xaafadaha Sheekh Jarraax. Kacdoonkan hadda socday wuxuu qayb ka yahay waa nidaam olole ka dhan ah jinsiga, diinta, dhaqanka oo dhammaanba la doonayo in meesha lagaga saaro. weerarka Israa'iil ku qaaday Falastiiniyiinta waxa lagu sheegi karaa inuu yahay dambi dagaal oo ka dhan ah bini'aadantinimada. Ma jiro wax caddaynaya dulmigan iyo gardaradan loo geysanayo Falastiiniyiinta. Sidoo kale ma jiro wax caddaynaya inay ka dhacday xanimaad bini'aadantinimo marinka Gaza. Dhammaanba haddii la isku soo ururiyo ciqaabtan waxaan si degdeg ah u qaadi doonaa tallaabo. Bulshada caalamka waxay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dadka Falastiiniyiinta xuquuqdooda. waxa imaan doonta inaynu qaadi doono qalab iyo hub kaasoo ah dhammaadka xadgudubka Israa'iiliyiinta. xaqiiqa ahaantii haddii aynaan baadhin xididka waxa keenaya isku dhacan, Falastiiniyiinta cabashadoodu way sii socon doontaa iyo ku hoostiridda gumaysiga Israa'iiliyiinta. dhibaatada iyo gumaysiga lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ma aha mid dhammaanaya ilaa meesha laga saaro qabsashada xaqdarrada Israa'iil ku haysato marinka Gaza. dadka Falastiiniyiinta waxay xaq u leeyihiin dowladay si gaar ah u leeyihiin. golaha xuquuqda aadamaha wuxuu door muhiim ah u leeyahay dhammaanba dhulkan. inaan hadalka badinaynin waxaan u baahanahay tallaabo aan hadda qaadno.